xiisad cusub oo siyaasadeed ayaa si tartiib ah uga soo ifbixaysa bariga Afrika waa mid muujinaysa in dalalka qaar ay mar kale ka fakarayaan khariidadaha badda marinada istaraatiijiga ah iyo awoodaha dhaqaale ee ku xiran badweynta Hindiya. Hadaladii kulula ee dhawaantan ka soo kala baxay xukuumadaha Kampala iyo Addis Ababa ayaa muujinaya caad colaadeed oo soo fool leh haddii aan si kala u dhignana waa loolan ku saabsan badda kaas oo laga yaabo inuu mustaqbalka noqdo mid qaab dhismeedka amniga gobolka dib u qeexa. Tabinteennan T15 Media ayaa eegaysa loolanka juqraafi siyaasadeed ee bariga Afrika soo dhawaada. haddii aan ku hormarnay Uganda oo soo lahayd himilo 30 jir ah ayaa haatan waxay u bedelaysaa mid loo huwinayo midab siyaasadeed. hadalkii madaxweyne Yoweri Museveni ee ahaa in badweynta Hindiya uu xaq u leeyahay ma ahan oo kaliya hadal siyaasadeed oo degdeg ah, waa calaamad muujinaysa niyadda Kampala ee ah inaysan u dul qaadan doonin xanibaadda dhaqaale ee ka dhalanaya inay yihiin dal aan bad lahayn. Uganda waxay ku tiirsan tahay Kenya iyo Tanzania si ay badeecadaha uga hesho badda. labadan dal mararka qaarkood waxay ku dhaqmaan siyaasad ku salaysan canshuuro, qawaaniin cusub ama xayiraado la xiriira amniga, taasoo Kampala ka dhigtay mid dareensan nugayl dhaqaale. hadalka Museveni oo leh cod military waa digniin siyaasadeed oo loogu talagalay Nairobi. ka fakara waxa dhici kara haddii marinada badda la inaga xanibo, ayuu yiri. How do I export my products? That's why we have got endless discussion with Kenya. Then this one stops, then another one comes, then the railway, the pipeline, the what, we discuss. But that ocean belongs to me because where is my ocean? I'm entitled to that ocean. In future we are going to have wars. dhanka kale wiilkiisa oo sidoo kale ah taliyaha ciidanka Uganda waxa uu qaatay dariiq qalalaasa hurin ah isaga oo xusuusinaya hadaladii hore ee uu ku sheegay in Kampala ay 2 toddobaad uun ku qabsan karto Nairobi. taasi waxay calaamad u tahay jihada cusub ee qoyska Museveni. laakiin xukuumadda Nairobi ayaa ka dhiidhisay sheegashooyinka Museveni iyo damaca wiilkiisa iyada oo ku sifaysay dhaan dabagaale. haddii aan u wareegno dhinaca Ethiopia, hanbad helitaan oo soo jiitamaya muddo 32 sano ah ayuu wadankaas leeyahay. dalka Ethiopia waxa ku jira muddo dheer halgan ku saabsan helitaanka badtan iyo markii Eritrea ay ka go'day 1993. Ethiopia waxay noqotay dal dhaqaalaha badda ka go'ay iyadoo 95% kaashata dekadda badda ee Djibouti. xataa mar waxay damaacisay Soomaaliya iyadoo oo marmarsiyo macnawi ah samaysanaysa, balse damacaas waxa uu noqday riya maalmeed. Ethiopia waxay u aragtaa in culeyskeeda dhaqaale ee sii kordhaya, dadkeeda aadka u badan iyo hamigeeda gobolka ay ka dhigayaan inay u baahan tahay marinbadeed toos ah. xiisadda siyaasadeed ee labadan dal ayaana sii korortay kadib markii ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed uu ku baaqay in beesha caalamka ay dhexdhexaadin ka gasho waxa uu ugu yeeray khilaafka u dhaxeeya Ethiopia iyo Eritrea ee ku saabsan marin u helidda badda cas. Abiy waxa uu sheegay in sheegashada Ethiopia ee arrintan ay tahay mid aan laga noqon karin, isaga oo ku adkaystay in dawladdiisu doonayso xal nabadeed. laakiin Eritrea ayaa u aragta hadallada Abiy kuwa khatar ku ah madaxbannaanideeda isla markaana dhaawacaya heshiiskii nabadeed ee 2018 kaas oo soo afjaray colaadii muddada dheer soo jiitamaysay ee labada dal. muddo dheer ka hor xiriirka Ethiopia iyo Eritrea waxa uu marayay heerar aad u xun kadib madaxbannaanidii Eritrea ee 1993. labada dal waxay galeen dagaal xuduudeed intii u dhaxaysay 1998 ilaa 2000 kaas oo sababay khasaare nafeed oo gaaraya 10,000 oo qof. xiriirka labada dawladood ayaana hagaagay markii Abiy Ahmed uu xilka la wareegay 2018 isla markaana uu heshiis nabadeed la saxiixday madaxweyne Isaias Afwerki oo Eritrea hogaaminayay tan iyo maalintii ay xornimada ka qaadatay Ethiopia. intii uu socday dagaalkii TPLF iyo xukuumadda Addis Ababa intii u dhaxaysay 2020-2022 ciidamo Eritrean ah ayaa garab u noqday ciidamada federaalka Ethiopia. colaadaas waxa ay salfatay in ka badan 600,000 oo qof sida uu qiyaasay Midowga Afrika. hase yeeshee wixii ka dambeeyay dhamaadka dagaalkaas xiriirka labada dal ayaa noqday mid mar kale gabadhaclaynayay iyadoo aan la isku halayn karin. bishii October ee sanadkan Ethiopia waxay ku eedeysay Eritrea inay maalgeliso kooxo hubeysan oo ka howlgala gudaha dalkaasi, laakiin Asmara eedaas waxay ku tilmaantay sheeko been abuur ah oo loo sameeyo dana siyaasadeed. muranka hadda taagan wuxuu xoogiisa ku saabsan yahay dekadda istaraatiijiga ah ee Casab oo muhiim u ah ganacsiga iyo isu socodka maraakiibta caalamiga ah. khilaafka sii kordhaya eedeymaha labada dhinac iyo kalsooni darrada soo noqnoqotay ayaa sare u qaadaya cabsi laga qabo xasilooni darro ku soo kororta mid ka mid ah marinbiyoodka ugu muhiimsan adduunka.
eedeymaha ay bishii hore u jeedisay Eritrea ee ahaa diyaar garow dagaal waxa ay sare u qaadeen su'aasha ah Ethiopia ma gaartay xadkii ay kaga adkaan lahayd xanibaadda badda aan si gundheer isula jalleecno sarta halka ay ka qurunsan tahay waxa jira 3 sababood oo waaweyn kow dhaqaale ku tiirsanaan xad dhaafa dal aan bad lahayn oo leh dhaqaale kobcaya wuxuu si toos ah ugu xiran yahay dekadaha dariska taasina waxay keenaysaa cadaadis siyaasadeed gaar ahaan marka xeerarka ama canshuuraha ay isbedelaan labo cadaadis siyaasadeed oo gudaha ah dalal badan ayaa marka ay wajahaan mushkilado maxalli ah sida doorashooyin cadaadis mucaaradka kaga yimaada dhaqaale daciifid waxay isku dayaan in ay isku boor qariyaan hanjabaado dibadda ah si ay u abuuraan midnimo qaran sidaas awgeed Uganda iyo Ethiopia labaduba waxay hadda la tacaalayaan arrimo gudaha ah oo culus saddex tartanka gobolka ee awoodaha shisheeye bariga Afrika waxa ku loolamaya quwadaha kala ah Shiinaha Turkiga Mareykanka Faransiiska iyo xataa Imaaraadka dal kasta waxa uu dan gaar ah ka leeyahay dekadaha iyo marinada istaraatiijiga ah tani waxay abuuraysaa cadaadis iyo xiisado sababi kara in dalalka qaarkood dareemaan inay waajib tahay inay xoog ku raadsadaan marinbadeed aanu imaanna su'aal kale Afrika miyay u socotaa jiha cusub oo dagaalo badeed ah inkasta oo hadallada Kampala iyo Addis Ababa ay yihiin kuwa kacsan haddana xaqiiqdu waxay tahay in dagaal toos ah oo ku saabsan marinbadeed uu aad u culus yahay siyaasad ahaan dhaqaale ahaan iyo military ahaanba laakiin waxa dhab ahaantii muuqda ayaa ah niyad cusub oo dalalka aan badda lahayn ka muuqata tartiib u soo kaca aragti ah in bad lagu guulaysto la wadaago ama lagu gorgortamo iyo khariidad badeed cusub oo ay Afrika samaysanayso laakiin Afrika ma u baahan tahay dagaal mise waa in dib loo juqraafiyeeyaa hadallada Museveni iyo tallaabooyinka Ethiopia waxay muujinayaan hal xaqiiqo marinbadeedku wuxuu noqday halbeegga cusub ee awoodda Afrika su'aasha muhiimka ah hadda ayaa ah qaaradda ma waxay qaadan doontaa wadada colaadda mise dariiqa iskaashiga iyo isfahamka juqraafiyadeed ayay ku dhici doontaa sida ay haatan u muuqato bariga Afrika waxa ay taagan tahay meel isgoys ah waa kala beer kulminaya fursado iyo fawdo labadaba balse aan u kaadino sida kaadirintu uga kaaftoomaan kaltanka colaadeed waa Abubakar Maxamed oo idin leh waqtigiina ayaad ku mahadsantihiin hana moogaanina inaad nagu xirnaataan inta aanu tabin kale ku kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabad iyo warsan